السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. horta cid walba way dhimanaysaa. Ilaahay baana geerida u ballan qaaday inay cid walba dhadhamiso, laakiin way kala naxdin badan tahay, wayna kala kulushahay, wayna kala xanuun badan tahay. Waxaa la oran jiray geeri waxay ku fiican tahay geel shire iyo nimaada garanayn bay oran jireen Soomaalida hore. maanta geerida xanuun kale aan dareemayo waxa weeye geerida ku timid walaashay hodan naaleeye. Ilaahay ha u raxmado, Ilaahay ha u naxariisto hodan naaleeye. hodan waxaa ku timid geeri aan loo quurin, sababtoo ah waxay ahayd barbaariye ama kobciye ama tabiye ama soo bandhige quruxda iyo wanaagga ay ummadda Soomaaliyeed leedahay inay adduunka gaarsiiso. in badan wariyaal Soomaaliyeed oo tiro badan way jiraan oo de luqada aynu ku hadalno ku tabiya xogta, laakiin kuwaas waxay soo gaarsiiyaan waa innaka. laakiin marka la doonayo in bilicda iyo quruxda waddan iyo ummad ay leedahay loo bandhigo adduunka, waxay ahayd qof aad u muhiim ah. ama waxaan oran karaa dadka fara ku tiriska ayay hodan ka mid ahayd ee luqadahaas caalamiga ku baahiya falku xushnimo ah, aad u fool xun, gabood fal ah ayaa iyadii ummadii Soomaaliyeedba dhalana beegsan jiray, haddana lala beegsaday. waxaan uga tacsiyeynayaa ehelkii iyo asxaabtii ay lahayd, anigu waan ka mid ahay. waxaan uga tacsiyeynayaa ilmaheedii, si guudna waxaan uga tacsiyeynayaa dadka Soomaaliyeed oo halkaa lagu xasuuqay. waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed, war had maad isgarowsanaysaan, had maad garanaysaan, had maad damiirkiina iyo maskaxdiina ka dhaadhicinaysaan inaad dadkan guxuushta ee xawayaanka ee dhiigi cabiinta ee aan ilmo dhaafayn, islaan dhaafayn, hooyo dhaafayn, gabar dhaafayn, cidna dhaafayn in la iska xoreeyo. had maynu guntiga u wada xiranaynaa inaynu si guud waxaas cawaantaaya ina qabsaday aynu isaga xoreyno. had maynu qulubteennu mid wada noqonaysaan. waxaad ogaataa ninka qarxinaya hoteelka, ninka qarxinaya ummadda Soomaaliyeed, ninka qarxinaya ummadda laynaya shacabka, ninka laynaya caruurta, ninka iskuulka qarxinaya, ninka bajaajta qarxinaya, mid baa ku taageersan oo daba fadhiyo gurigiisa kusoo dejinaya, qaraxa u fududeynaya, bajaajta u fududeynaya. horta ma fahamtee inta halkaa la joogana wallahi inaan la xoroobeyn oo aan la noqonayn ummad xorowday, oo aan la noqonayn ummad guuleysatay, oo aan la noqonayn ummad horumar samaysa, mana ku ekaanaysa intaa. marka haddaynu inagu raalli ka nahay in maalin walba haldoorkeenna iyo qofkeenna indhaha laga rido, in midka ummadda iyo danyarta iyo masaakiinta taageero in la dilo, midka nabad ka sheekeeya in la dilo, oo bugtiya bacdaas aynu raalli ka noqono, wallahi saasaynu ku rogmaynaa. markii midka ugu dambeeya cunana waddankan waa la soo degi doonaa, oo waxaa soo degi doona dadka sabalaygareynaya ama waxaan inoo soo dhibay. de waxaan fikran lahayn ma ahan, waa wax la doonayo in layna ku dabargooyo. ummadda Soomaaliyeed sidaad ogtihiinba intaasoo sannadood ayay qabiil isu soo leynaysay. markii la ogaaday qabiil inaysan isu dhammaynayn, oo ninku uu markuu qoriga soo qaato seedigiis ama fakinayo, ama ku abtiga u yahay fakinayo, ama abtigiis fakinayo, ayaa waxaa la yidhi sidee wax caama uga dhignaa. waxaan uga dhignaa hal gaari ina tireeya inta la soo buuxiyo sidii sooboo kale, halkaa bug ha lagu siiyo 900 oo qof ha naf weydo. ilaa waxaa laga yaabaa kan meesha isku qarxiyo inuu adeerkiis ku jira, ama aabihiis ku jira, ama abtigii ku jira, ama eedadii ku jira. ma fahmaysaan? marka sidaa caamkaaba la doonayaa in layna ku dhammeeyo. haddaba waxaa leeyahay ummadda Soomaaliyeed maskaxda iyo garaadka iyo caqliga ha laga shaqaysiiyo, oo dib ha laysu xisaabiyo, oo mid ha la noqdo. ummaddan dhiiggeena cabaysa inaan mid u noqonno oo aan iska dhicinno ha lagu talagalo.